ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Gado gaar ahaan magaalada Balad Xaawo oo shalay ay ku dagaalameen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyada oo ay dawladda Soomaaliya ku eedeysay soo dirtay wadanka Kenya. Wararkii ugu dambeeyay maanta ka imanaya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegay in hadda ay degan tahay isla markaana ay ciidamada dawladdu si buuxda gacanta ugu hayaan isla markaana ilaa maanta ay si habsami u sugayaan ammaanka guud ee degmada Balad Xaawo. Saraakiisha laamaha amniga ayaa sheegay in amnigu uu yahay mid wanaagsan isla markaana la isku halayn karo. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale bilaabay inay dib ugu soo noqdaan guryahooda kuwaasi oo hore uga barakacay dagaaladii ka dhacay degmadaasi shalay subaxii hore. Dhinaca kale saraakiil ka socda dawladda Soomaaliya ayaa saacadaha soo socda ku wajahan degmada Balad Xaawo si ay u soo qiimeeyaan xaaladda guud ee magaaladaasi. Si kasta ha xaaladda Balad Xaawo ayaa isku bedeshay mid dagaal kadib markii habeen hore ay weerar ku soo qaadeen ciidamada uu horkacaya wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan kuwaasi oo gacan ku haynta degmadaasi hayay muddo kooban balse shalay subaxii ay kala wareegeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay gacanta ku dhigeen in ka badan 100 ka mid ah maleeshiyadkii uu hogaaminayay wasiirka amniga maamulka Jubbaland ee weerar ku soo qaaday degmada Balad Xaawo. Haddii aan eegnana xiisadii diblomaasiyadeed ee dhanka xuduudda u dhaxaysay wadamada Suudaan iyo wadanka Itoobiya xiisadii u dhaxaysay wadamada Suudaan iyo Itoobiya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa isla markaana haatan gaadhay gacan ka hadal dhex maraya ciidamada dawladda Suudaan iyo Itoobiya oo isku khilaafsan suudinta u dhaxaysa oo ay wadaagaan labada dal in ka badan 1 kiiloomitir. Ilaa military oo ka soo baxay dalka Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in haddii ciidamada dawladda Suudaan ay iska caabiyeen weerar gantaala oo ay ku soo rideen ciidamada tiro badan oo ay dhawaan dawladda Itoobiya geysay meel ku dhow deegaanada ay aakhirkii bishii Diseembar qabsadeen ciidamada militariga wadanka Suudaan. Saraakiisha militariga ee xogta siiyay warbaahinta gudaha Suudaan ayaa intaa ku daray in gantaaladu ay soo rideen ciidamada militariga Itoobiya ay ku soo qaadeen buurta deegaanka loo yaqaan Abu Tayyir oo ah meel ku dhow fariisimada ciidamada militariga ee xuduudda Suudaan. Warkan oo saraakiisha Suudaaniyiintu ay siiyeen warbaahinta Sky News qaybta afka Carabiga ayaa waxay ku sheegeen in aanu jirin wax khasaare oo ka dhashay weerarka gantaalaha ee ka yimid ciidamada militariga wadanka Itoobiya. Bishii November Suudaan waxay ciidamadeeda ku faafiyeen aaga xadka ee faqasha loo yaqaan kadib markii ay dib u soo celiyeen dhul ay hore u beeran jireen beeraleyda Itoobiya tan iyo sanadkii 1995. Horaantii bishan Suudaan waxay xayiraad dhanka cirka ku soo rogtay aaga xadka kadib markii ay ku tilmaantay inuu yahay mid ay halistiisu sii kordhayso. Waxaana 13 bishan diyaarad military oo Itoobiya leedahay ku xadgudubtay hawada wadanka Suudaan. Wasaaradda arrimaha gudaha wadankaasi oo ka hadashay diyaaradda ku xadgudubtay hawadeeda ayaa ku dhawaaqday digniin cawaaqib xumo oo ka dhalan karta xiisadda xuduudda ee kacsan ee u dhaxaysa labada wadan. Wasaaradda ayaa ku boorisay dhinaca Itoobiya inay ka fogaadaan falalka caynkan oo kala kuwaas oo ay Suudaan ku tilmaantay in uu saameyn xun ku yeelan karo xiriirka mustaqbalka labada dal amniga iyo xasiloonida geeskaba. Wasaaradda arrimaha gudaha Suudaan ayaa dhanka kale markii horeysay shaacisay in shufta Itoobiyana ay weerar ka dhan ah dad rayida ku soo qaadeen tuulo yar oo ku tala deegaanka Al-Quraysh dadkaasi oo goosanay dalagii ay beerteen isla markaana ay halkaasi shuftadaasi Itoobiyankii ku dileen 5 haween iyo ilmo caruur halka wali la laayay 2 kale oo haweena. Dawladda Itoobiya wali dhankeeda kama hadal eedeynta Suudaan ee ah inay gantaalo ku weerareen ciidankeedu habeenkii xadii xirooyin ciidamada Suudaan ay ku leeyihiin xuduud ay wadaagaan labada dal. Hore abaandulaha ciidamada militariga wadanka Itoobiya wuxuu digniin ugu diray wadanka Suudaan oo ugu baaqay inay ka dheeraadaan soo faragelinta dalka ay Itoobiya leedahay halka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo markaa hadlay xiisadda Suudaan oo ku baaqay in xaaladda wada hadal lagu dhameeyo iyadoo abaandulaha ciidamada militariga Itoobiya markale uu eedo u jeediyay dalka Masar oo ku tilmaamay inuu dabka soo shidayo xaaladda soodinta ee u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Itoobiya. Qaar ka mid ah beeraleyda Itoobiya ayaa waxay muddo dheer tabcan jireen dhulka beeraleyda ee gobolka Al-Faqsh ee dalka Suudaan xilliga ay halkaasi qabsanayeen ayaa waxa dalkaasi xukumayay hogaamiyihii laafgambiye wadanka Suudaan Umar Xasan al-Bashir kaasi oo shacabka Suudaan ku eedeeyeen inuu ka gaabiyay hadalka dhulka Itoobiya qabsatay balse xubnaha militariga hadda ay xukunka wadanka Suudaan ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamay haysashada dhulkooda ee wadanka Itoobiya. Tabaaqadii sanadkan soo dhaafnay ayaa waxa ciidamada dawladda Itoobiya ay weerar ku qaadeen xero ku taala bariga magaalada Al-Qadarif halkaas oo xilligaas ay ku dileen kuna dhaawaceen dhowr askari oo ka tirsan ciidamada militariga wadanka Suudaan iyo dad rayida. Ciidamada qalabka sida Suudaan ayaa markaasi wixii ka dambeeyay military xoojina u diray deegaanka Al-Faqsh kadib weerarkii lagu dilay 4 askari laguna dhaawacay 20 ka tirsan militariga oo ilaalinaya xuduudda koonfurta 15 bishii Diseembar ee ka soo gudbinay. Weerarkii bishii Diseembar ayaa yimid 2 maalmood kadib markii ra'iisul wasaaraha wadanka Suudaan Abdullah Hamdok uu soo afjaray booqasho 2 cisho oo ku tagay wadanka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa isagoo dib ugu laabtay si dhaqso dalkiisa saacad kadib halkii uu ka joogi lahaa 2 maalmood oo qorshe ahaa. Warbaahinta qaar ayaa warisay in ra'iisul wasaaraha wadanka Suudaan Abdullah Hamdok uu xilligaasi fidiyay dhexdhexaadin dawladda federaalka Itoobiya iyo jabhadii xoreynta ee TPLF Tigreega laakiin dalabkaasi waxa ka diiday ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya markaasi oo ay ku qasabtay Abdullah Hamdok inuu si dhaqso ah uga soo baxo magaalada Addis Ababa. Waxa la
xusay in ka badan 500 oo kun oo kamid ah 900 oo kun oo ka barakacayaan Ethiopian ay u qaxeen wadanka Suudaan sabab la xiriira dagaaladii ka bilowday gobolka Tigreega kaasi oo dawladda wadanka Itoobiya ay ka takhalustay jabhadii Tigreega ee TPLF oo xukuumaysay wadanka Itoobiya iyo sidoo kale gobolka Tigreega ku dhawaad 30 sano aan ku sii socono wararkeena maalinimo waxa kor u sii kacaysa colaadda u dhaxaysa dalalka Taiwan iyo sidoo kale Shiinaha waxaana hadda maraysa meel car iyo wir ah kadib markii toddobaadkii aan soo dhaafnay dawladda Shiinaha ay kicisa in ka badan diyaaradaha dagaalka si ay Taiwan ugu muujiyaan diyaar u yihiin ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dalweynaha Shiinaha ayaa Taiwan u aqoonsan gobol kamid dalkiisa halka Taiwan ay ku doodo inay ka madax bannaan tahay dalkaasi arrintaasi oo soo taagneed muddo dheer waxaana Taiwan leedahay maamul iyo madaxweyne u gaar isla markaana waa dal yar oo kooban oo ka dhaqaale badan dalal badan oo kamid ah kuwa dunida la aqoonsan yahay haddaba dawladda Taiwan oo ka jawaabaysa dhaqdhaqaaqa military ee quwadda Shiinaha iyo gantaal ay ciidamada dalkaasi ku galeen meel kamid ah badweynta waxa heegan buuxa la geliyay ciidamada kala duwan ee dalka Taiwan kuwaasi oo haatan isku diyaarinaya inay ka jawaabaan dhaqdhaqaaqyada dawladda Shiinaha waxaana ciidamada Taiwan ay guda galeen diyaar degdeg ah iyagoo oo la tijaabiyay qaar kamid ah diyaaradaha dagaalka ee ku xareysan xero weyn oo kuwa ciidamada ah kuna taala koonfurta magaalada Tainan si ay uga hortagaan daandaansiga ciidamada cirka Shiinaha oo axadii iyo sabti toddobaadkan hawada ku sii daayay diyaaradahooda si weyn looga dareemay gudaha Taiwan guuxa ay sameeyeen diyaaradahaasi Shiinuhu ku soo daayay hawada Taiwan korneyl lagu magacaabo Li Jianji oo ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga Taiwan ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in diyaaradahoodu sida caadiga ah ay u kacaan iyagoo ku hubaysan qoryaha loo yaqaano Sidewinderiska oo Mareykanku ku sameeyay iyo sidoo kale gantaalada loo yaqaano Skywards kuwaasi oo tilmaamay inay si dhaqso ah ugu jawaabi karaan diyaaradaha dagaalka ee wadanka Shiinaha waxaan diyaar u nahay ayuu yiri intii lagu guda jiray booqashada ay dawladdu abaabushay ay ku tagtay saldhigga koonfurta magaalada Tainan ma bixin doono hal inji oo kamid ah dhulkeena ayuu yiri sarkaalkaasi ciidamada cirka Taiwan waa kuwa si wanaagsan u tababaran laakiin waxay leeyihiin diyaarado dagaal oo aad uga yar kuwan Shiinaha waxaan aad uga adkaaday cadaadiska ay saartay wadanka Shiinuhu kuwaasi oo ay Beijing sii kordhisay hanjabaadaha isla markaana haatan si toos ah hawada Taiwan ugu sii deysay diyaarado dagaal arrintaasi oo ka cadhaysiisay maamulka Taiwan dhammaan dhinacyada waxa naga saaran cadaadis aad u badan laakiin ilaa inta ay naftu nagu jirto waxaan si adag uga falcelin doonaa hanjabaadaha anaga u diyaar garoobayna dagaal kasta oo naga yimaada wadanka Shiinaha ayuu yiri duuliye sare oo lagu magacaabo Wang Jinjan ugu dambeyn haddii aan eegno dhinaca iyo wadanka Tunisia warbaahinta wadanka Tunisia ayaa baahinaysa rabshado cusub oo dib uga qarxay dalkaasi kadib markii mid kamid ah dibadbaxayaashii uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray gacanka hadal dhexmaray isagii booliska wadankaasi qoyska wiilka dhintay ayaa warbaahinta u sheegay in wiilkoodu uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rabshadaha isku bedelay gacanka hadalka booliska iyo dibadbaxayaasha xafiiska dacwad oogaha guud ee Tunisia ayaa amray in inta aan la aslimeedka la baaro si loo ogaado sababta wiilku uu geeriyooday wadanka Tunisia ayaa horaantii bishan waxa ka bilaabmay dibadbaxyo xooggan kuwaasi oo lagu beegay sanad gurida tobnaad ee ka soo wareegtay markii xilka laga turay madaxweynihii wadankaasi hogaaminayay muddada dheer ee Sayidin Caabidin bin Cali kacdoonkii ka bilaabmay wadanka Tunisia muddo 10 sano ka hor ayaa loogu magac daray Guga Carabta kaasi oo galaaftay qaar kamid ah hogaamiyaashii wadamada Carbeed oo in ka badan 30 sano hogaaminayay qaar kamid ah wadamada Carabta iyo sidoo kale Khaliijka waa tahay dawlad guud ahaan taasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa warkeenii maalinimo kan warka xigeentan ku kulmi doono dhamaantiin waxaan leenahay nabadgelyo